horta xasan oo xildhibaanadii waqooyi bari laga soo doortay arinta ay horta aad ay u eedeysan yihiin maxaa yeelay waxa la rabaa kow xataa haddii ay qof kale ay arintayda ka soo bixin ayaga naftooda inay isxilqaamaan oo arinta ayada baarlamaanka sidii aad ugu doodi lahayd falkeeda ay galaan ayaa la rabay waa laga cod badin karaa laakiin inaad taariikhda aad gashid inaad arinta ayada adiga aad juhdi aad saartay aniga waxaan leeyahay xildhibaanadeeni baarlamaanka iyo senadkaba arinta ayada in aad looga saaxday maxaa yeelay guddiga shaqo soo qabtay report baa la soo qoray dadkii xasuuqan asgaari ay kamid yihiin oo iyo eheladoodii wali waa nool yihiin marka inay arinta ayada haddii ay maxkamad ay keeni karin inay processka looga targalo baarlamaanka in lagu doodo ay ahayd inay xoog saaraan in ayaga naftooda ay keenaan biil ay keenaan ay dood ay furaan oo arinta ayada wax ilaa hadda aan loo fulinayn ay sameeyaan xildhibaanada horta aad bay ugu gaabiyaan laakiin gooni hadda mar ay ahaataba waxaan kuu sheegi karaa horta reportka asaga inaas qoran yahay oosan dhumaynin ummadina ay u furan tahay haddii TJRC waxay ku leedahay local mechanisms wixii wadanka dhexdiisa ah looga talagalay maxkamad ahaata guddi saas oo kale ahaata waxay fulin karaan inay fuliyaan laakiin haddii tii ay dhici wayso ummadii waxa u filan inay level kale ay aadaan level kale ay aadi karaan waxa way AU ay aadi karaan waxay aadi karaan maxkamad adduunka ay aadi karaan laakiin markasta waxa lagu leeyahay bal mechanismski gudaha hay ma ka soo daasheen oo ma exhaust waxa way yani leveladii looga baahnaa kulli juhdi ma geliseen waxaan ku dhilahay juhdiga asiga waliba xaqi baarlamaanka ma dhicin laakiin waxaan rabaa inaan xuso dhalinyaro badan oo reer waqooyi bari ayaa arintan aad iyo aad iskugu shuqlay 36 sano oo la soo dhaafay xasanow sanad kasta arintan waa la xusay waxaan ogahay dhalinyaro oo jaamacad ku jirta oo ilaa iyo 1997-98 ilaa hadda arintan ayagoo hadda odayaal oo jaamacad ka soo baxay ayaa arintan hoggaan u hay oo sanad kasta sidii sanad guurida lagu xusi lahayd falkeeda ku jirtay waxaan ogahay dhalinyaro buugaag ka soo qortay ayaga naftooda buugaag soo daabaceen ayagoo jaamacad ku jira waliba khaas ahaan si gooni waxaan rabaa inaan ugu xuso walaalkay Saalax Cabdisheekh Dr. Saalax Cabdisheekh ilaa 2 buug ayuu arintayda ka qoray dadaal weyn ayuu ka gaarsiiyay ayuu shakhsi ahaan ay iska gaarsiiyay of course xubno badan oo asana garab sii waa jiraan marka xagga dhalinyarada waa taas xagga bulshada waliba reer wajeer aan dhahay way isku dayeen sanad kasta inay arintan ay xusaan oo isoo xasuusiyaan oo hatta garoonka la taga ilaa 2014 arinta iyada waa la sameeyay laakiin maadaama guddi dawladda asmaaday maadaama guddiga asbaaritaan sameeyay maadaama qoraal la sameeyay dadku waxay u haysteen in xasuuskii iyo xuskii sanad kasta aan sameeynin hadda ayna macno weyn ayna sii lahayn tiiba xoogoo loo yara gaabay laakiin sanadka haddana waa la soo ceshin aad aragtay mooyaan sanadka hadda la soo dhaafay lama sameeynin kii kasii horeeyay lama sameeynin laakiin sanadkan haddana waa la soo xusay marka dadweynihii shaqadii laga rabay way qabsadeen dhalinyarada iyo ummadii wax soo bartay waxaan rabaa inaan xuso nin walaalkayn adwaa dhinta Allah raxmada leeyahay Cabdi Cumar Yalaxow oo Canada arintan aad sanad kasta ugu xusi jiray oo ka soo doodi jiray marka hebel ma dhihi karo laakiin wajeer waxa la sameeyay hay'ad leeyahay Wagala Foundation odayaalkii iyo dadkii soo haray ayaa inay isu imaadeen ayaga naftooda sameysteen institution oo arintan Wagala looga doodo meel xafiis bay leeyihiin oo library bay leeyihiin oo wixii qoraal ahay iyo wixii sawirro ay kulli waa yaalaan marka waxa dhici karta in arintan ayna suurtagelin maanta iyo bari laakiin waxaan ku sheegi doonaa 100 sano dambe ahaata qoraalkina waa yaala taariikhdana way qoran tahay ummadana waxay ka geystay way qoran tahay